حرسيو كما هينيو بسم الله الرحمن ما أنت معاك العودات كتاب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه نقع قلو مالمه أنصوص صورني إنتنا حاجة تكتيع سيدا في عن عبادي سنة إنه إلهي فضل قولنا قدام بدافو عبادتنا أكاك بلو لما أنتي وحد الله عيد مبارك وأن السلام يا إذنك إيا حاسسكين إيا قرابين إيا دك مسلمين تاه iyo kuwa markii ugu horeysay ka soo baxay jeel ogaadeen ee dadkooda la ciidaya ma sha Allah intaas oo dhanba waan u hambalyeynaya munaasabada ciida awgeed marka aniga walaalkay xirsi maxamed cabdiqaadir xildhibaanka ayaa ballansanay inaan soo wada galno habase hata waxa laga yaabaa in cilad xagga farsamada ay xoogaa yara jirto hadduu ii soo geli karana waa sax haddii kalena xoogaa waan sii wadwadaya waan sii turtuuraya si fiican ma lay maqlaatalo haddii si fiican lay maqlo dabcan ha please ha ii soo qor si aan haddii kale ugu daro codka amaan wax iska hagaajiyo waxay u egtahay in la maqlayaan malaynaya okay marka ciidan iyo ciidii hore dhammaanteen waynu garanaa faraqa u dhaxeeya ciidii hore qaraabo badan baa inaga xidhnayd dhammaanteen waxaynu ku qaylinaynay jeel ogaadeen dadka ku jira la sii daayo qaraabadooda ha la ciidaan waxaynu ku qaylinaynaa in xorriyaadka dadka ma garanaysaa loo ogolaado inay dadku hadli karaan inay dadku waxay doonaan sheegan karaan waxay diidaan ay diidi karayaan waxyaalo badan oo noocaas aynu ku qaylinaynaa wixii waynu wadahaynaa maanta alxamdulilah rabbil caalamiin iyadoo taasi ay tahay uun ma garanaysaa halgankii aynu ku jirnay iyo dalabaadkii aynu wax dalbanaynay qaybtii koobaad ay tahay oo keliyaata ee weliba se qaybtii dambe ay weli inoo dhiman tahay oo hawshu waa bilow laakiin fari kama qodnaa la odhan jiray faanole waxay naga maqaanay intaa aad buu uga badan yahay yeenaan ku qancin intayna maanta aynu haysano yeenaan ma garanaysaa intanuun ina cajabinin waxaan arkay dad fara badan in la farxo way tahay in dadka lasoo booqdo way tahay in baabuur laysaba ka haysto oo dadka de wixii fiicnaa yimiday mubasharaadkiisa loo sheego way tahay laakiin yaan loo arkin inaan natiijadii iyo destinationkii aynu soconahay intaas ay bes may inaynu cabdigun meesha ka qaadno uu ka tago cabdi hal shakhsi buu ahaa inagu nidaam baynu doonaynay inaynu bedelo nidaamkii markaynu bedelaynayna wax meeshii dhaamaa waa inuu yimaado haddii kale uu noqdo ma garanaysaa nidaamkii hore bedel ku aan kii dhaamina uu yimaado taasina waxay noqonaysaa waa kudka guuro qanjigo guur wixii la odhanayay malihii dowladda soo socotaa way xumaan doontaa niyaddana kuma hayo ilaahayna kama rajaynayo laakiin waa arrin in laga taxadiro u baahan iyada lafteedu waxaan u jeedaa inaan aada ugu mashquulin cabdi tagitaankiisii iyo ka sheekayntiisii iyo ma garanaysaa sidan buu ahaa iyo saa buu ahaa iyo inaan ku daalin waqti badan inaan ku lumin isaguu tegey kuwii isaga la socdayna way la tageen ama way la tegayaan kolkay la tagaan dabadeedna ciddii dembi fashayna ma garanaysaa waa laga jari oo waa laga gudi waa waxay cadaaladuna barayso oo sida qofkii madluumka uu ku ma garanaysaa oo ku qaboobaya la yeeli oo xaqu wuxuu siinayaa loo jari ciddii kale ma garanaysaa fiicnayda aan in dambigaasi ku jirina dadka ka mid noqonaysaa oo dadkayga dhinac ka raacaysaa in dadka la iswada raaciyana maaha in qabiil loo beegsadana maaha in ma garanaysaa la idhaahdo maadaama uu qabiilkaasi u badnaa ma garanaysaa nidaamkii hore ee jiray iyagana hala faquuqo yacnihii dulmigii aynu doonaynay inaynu la dagaalano baynu inaguna samaynaynaa un taasina waa wax aan fiicnayn oon sina ku fiicnayn oo in u baahan laga digtoonaado takale labaadaan kusoo dari lahaa carabka ku dhuftayna waxa weeyaan yow maxaa inaga maqan horta waxaan inaga maqan in raadinaynaa muxuu yahay waxaad ogaataan oo marnaba ay tahay inaynaan ilduufin nidaamkan meesha ka jiray dad baa samaystay cid baa samaysatay dantay ka lahaayeenna waynu garanaynaa nimankii samaystay waxaa nimankii ka talinaya sababa nimankii TPLF taaba sorry telephone baa iga soo dhaxgal nimankii TPLF taaba ahaayeen wixii samaystay nidaamkan halkay joogeenna waynu garanaynaa
sababtay u sameeyeenna waynu ka dharagsannahay dhammaanteen. waddanka ciidan baa gacanta ku hayay. yacni siyaasaddan xitaa liyu booliska lagu sameeyey nimankii ka ahaa injineerada ee architectka ka ahaa xaggaa sare wuxuu inaga yimiday. innaguna xuquuqaha aynu raadinayno yacni waxaynu ka bilaabaynaa in maad garanaysaa yani waxaynu ka bilaabaynay bal ooda dhacameed siday u kala horeeyaan yaa loo kala guraa baa la odhan jiro. tan sokaynu ka bilaabaynay deetana inaynu halkaa ugu joogsano kaaramarnayna waxaynu ku joogsada ma ahayne waxayd inaynu kor haddana usii socono oo aynu ka doonano xaqi inaga maqnaa badankiisu halkii inaga maqnaa. waa meeshii waxa naga soo agaasimayey, waa meeshii waxa kan naga soo abaabulayay. halkaasay waxay nagaga xidhnaayeen. taa waxaan uga jeedaa inaynu inaku aada isugu sii mashquulno cabdi dabadii waa laga fiican yahay. haddana markaynu leenahay inta kale saddexaad ay dooni inaan ka hadlano haddana markaynu leenahay nidaam baynu bedelaynaa. yacni nidaamkii hore ashkhaasta keliya town haddii la bedelo laakiin sorry telefoona waxoogaa iga soo wargelgelaya wax yar iga raalli ahaada waxbaa iga yarsiyaan malaynaya. sorry waxaan kusoo darayay xirsi cabdiqaadir. xirsiya waan ku invite gareeyey deetana kusoo bod daad helaashid ya markaa waxaa ku dhex jiray technologyga ana waxoogaa un baan isku rafaadnay moogta. okay marka haddii ashkhaas ay meesha ka tageen oo laakiin nidaamkii ay ka tageen iyo formuladii ay noo dhigeen waan ku soconaynaa haddaynu idhaahno isbeddelkaynu doonaynay muxuu ahaa. yacni dad baan arkayay maalmahan aada ugu faraxsanaa degmooyinkii waxbaa dad looga yeedhyeedhay baa lalahaa deetana markaasaa waxaa lagu qaybsanayaa baa la yidhi ma garanaysaa sidii formuladii iyo ku ay noo dejiyeen. deedna yacni waxa iga yar dhaadhici kari weyday wixii aynu diidaynay iyo waxa aynu doonaynay baynu aada u kala garananahay. taasaa yaa macnaheegu meesha iga soo baxay. oo amaad garanaysaa haddii formuladii iyakoo ay inoo dhigeen aynu wax ku qaybsanayno maxaynu ula dagaalamayna maynu iska dayno. yacni ma shaksi nacay baynu u dagaalamayna umaynaan dagaalamayn maxaynu u halgamaynaynu intaasoo dhan u dagaalka iyo rafaadka u gelaynay. waxay ahayd in nidaam iyo system meesha ka jira aynu bedelno. systemkii iyo nidaamkii marka aynu bedelayno waa in wixii ay la yimaadeen aynu bedelo. yacni dabcan Roma was not built in a day baa la yidhahdaa si degdega aynu wada bedelo wixii maahan. laakiin dadka ku doodaya maanta eele formuladii nimankaasi ay ka tegeen baan ku soconaynaa sidii iyaka waxa loo qaybiyo odhan jireen baan u qaybinaynaa. yacni degmooyinkii 9 ugu dambeeyey baan kusoo darsanaynaa. taasi waxaan leeyahay taas waxba kama jiraan. xirsi oo haddaad maqasho waan ku aqbalay deetana unbaa siiyana waa maxay talo. markaa waan ku soo qabtay xirsiyow ku soo qabtay laakiin de wuxuunbaa ya bal xaggaaga ka soo galaada. marka haddaan sii wado kulley walaalkan xirsina wuu igula qornaa wuu soo geli doonaa insha allahu saan filayo. haddaan sii yaro wado markaa yacni formuladaasi iyo ciddii dhigtay baynu doonayna inaynu meesha ka saarno. ciddii dhigtay meesha way ka tegtay
يعني hal shakhsi baa weli tegay kuwa kalena waan filaynaa in sida ugu dhaqsaha badan la ay u tagaan oo meesha loo nadiifiyo deetana formuladii lafteediina waa in laga hadlaa waa in laga heshiiyaa waxaan shay yani ashkhaas waxa ay dhigteen oo ay dana gooniya kala haayeen iyuu ahaa waxaasi wax shaqayn doonayana maahan labadaas shay baa ani ila muhiima yani isbedelkeenu doonayna inuu yahay deedna istabka saddexaad baynu u gudbaynaa oo ah meeshii waxa kan laga soo agaasimay iyo wixii inagaga maqnaa kor inaynu raadsano yani dowladda dambe ee timaada waxyaalaha ugu horhoreeya hor yaalla waxay ka mid tahay inay formulooyinkaasi saxdo yani haddii kalese yani wixii lala dagaalamaya halkiiba weli joogaa waana ku rajoogaynaa inay sixi doonaan ta kale labaad waxay noqonaysaa in wixii kor inagaga maqnaa ay baadi doonaan maxaynu ku leenahay waddankan saamiga aynu ku leenahay muxuu yahay yani waddanka waxaynu ka nahay qowmiyadda labaad ee ugu dhul ballaaran marka oramada laga yimaado waxaynu ka nahay qowmiyadda saddexaad ee ugu dad badan marka oramada iyo xanaarada laga yimaado markaas yani baarlamaankana waxaa iga matela 24 qof oo keliyata waxaan laba wasiir ka badan dowladda federaalkan ku lahay mid ay qabata maaha yani waa waxyaalaha u baahan in ma garanaysaa in aad looga hadlo oo dowladda dambe waxyaalaha horyaala ee caqabadka ayay ka mid tahay qodobka kale doonaya inaan maanta soo qaadana waxa weeyaan iyadoo weli aan rajeynayay in walaalka xirsiyi soo galo xirsi inuu iminka soo galay aan filayaa soo gal xirsiya waan kugu daray marka qodobka kale aan doonaya inaan ka hadlana waxa weeyaan cabdi markuu meeshii ka tegey maanta gobolkii siduu u egyahay yani siduu u egyahay gobolkii nidaamkii hore markuu meesha ka baxay wuxuu u egyahay gobolkii maanta inaanu jeelowgaadayn active aanu shaqaynaynin inaan dad lagu cadaabaya halkaasi jirin in dumar la kufsanaya aan la soo sheegaynin in ganacsigii dadku ay u madax bannaan yihiin in dadku sida ay doonaan ay u shiri karaan markay doonaanna ay shiri karaan haa xirsiyow soo dhow bahalka xagga kale u jeedi waxoogaa wad yar jiiftaa ya waad jiiftaa baan u malaynayaa adaa jiife wallahi hal jiir laga noqday adiga dadka kale caadi baan u hayay adu ya waa aniga miya ay ii kaadi hadaba bal aan sida kale bal hadaan eegaysa aan ii kaadi ilaan baasha technology wax jiibsan هذا سوية هذا أنا حاجة كلمة ضد جيبسته بل تيجي نقطة هذا وانا وحاجة وكا صح إنك صح تاي تدانو صح كويا ميا صف يعني أديات هاي إنك صح تاي وض هذا كويس أديات صح مركا وان سوير وذا إنجلنا يربو بسيري waxaan isbarbar dhigay bal abdi intii uu meesha ka tagay iyo dabadeed wixii yani say xaaladdu isku bedeshay marka inaanad ila socon baan u malaynayaa haddaan in yar ku soo celiyo waxaynu arkaynaa maanta in jeelkii joologaadeena cadaabtahay inta badan aynu ka sheekeynayna xuquuqul aadamiga iyo cid kastaba ay ka warrami jirtay inaanu jirin oo iska xidhan yahay waa kow taas waa wax fiican dadkii halkaasi ku cadaabnaan may waa markii hore soo qorayeen kadaa ka noqo markii hore miya qoraalkii hore miya ku noqo sidii hore imika ahayd saa ku daa wakaa sax baa tahay imika saa ku daa marka markuu nidaamkii meesha ka baxay wixiisii oo dhan yani qashinkiisii oo dhan wax badan way raaceen laakiin ilaa imka waxoogaa formuladii baad moodaa inay dadka qaarkood isku dayaan inay ka shaqaysiiyaan taasna waxaan filayaa inaanay sii shaqayn doonin oo nidaamka iyo formuladii uu meesha dhigtay wax dadka u cuntami waayey bay ahayd ninka maanta kule degmooyinkii 99kii waxaa lagu soo qaybsado oo taa aaminsan ani wuxuu ila mid yahay oo ninkula ma garanaysaa dib u curashadii baa weli ii shaqaynaysaa oo yani waa wax maalin riyooda yani cabdi iyo kabihiisi waa israaciil way tageen inaynu aada ugu sii mashquulna maahan isagu maadaama uu tagay hawlaha kale inoo yaallaa ee badani maxay yihiin bay noqonaysaa yani bulshadii xorriyaad baa yeeshay maalin dhaweed nin baan ka maqlayay dadka intellectualka ah oo aada wax u bartay xorriyad baynu helay laakiin xorriyadda lafteedana inaynu ku hafano maaha buu ereygaas aada soo jiiday yani dimuqraadiyadda haddii lagu yidhahdo 200% baad xor tahay haddii lagu yidhahdo waad ku hafanaysaa yani waa inaad xad yeelata laftaadu de
meeshii waa in nidaam uu jiro waa inuu kala dambayni jirto ma had ninku intuu iska soo kaco inuu yidhahdo maad garanaysaa waa jigjigoo dhan ba anigaa leh dad kale iga guuraan anigaa leh oo waa maxay xor baan ahay inaan yeesho waxyaalaha noocaas oo kale ah in ma garanaysaa laga yarwaantoobo oo dowladnimadii iyo nidaamkii iyo kala dambayntii lagu adkaado ayaa muhiima intii fiicneed waan ka soo warranay maxaa in xunoo jirta markii nidaamkii caddi uu meesha ka baxay waxaa yara jira qax dhacay baa jira dadkii qaxay waxay u baahan yihiin inay kalsoonidoodii dib loo soo kasbado ay usoo noqdaan reerahoogii dadka qaxay waxaa ka mid ahaa dad aan xataa soomaali u dhalan inoo soomaali ahayn oo qowmiyadaha kale ka soo jeeda laakiin ahaa xoogii wax bartay ee deegaankan laftiisu u baahnaa waxaa ka mid ahaa nimanka dhakhaatiirta la yidhahdo waxaa ka mid ahaa macallimiinta jaamacadaha ka mid ahayd dhakhaatiirtii oo kale maanta haddaad aragtid waxaad arkaysaa in cusbitaalkii weynaa karamardha ay joogaan malaha 2 dhakhtar 3 dhakhtar oo Soomaaliya waxaan ka badnay inta kalena wada neers ay tahay nimankii dhakhaatiirtii wada specialistayaasha ahaa dee waxbaa ku dhacay maxay u baxsadeen lama oran karo waxbaa ku dhacay wixii ku dhacay wuxuu ahaa waynu u wada joognaa kuna sii dheeraan mayno oo dadka qaarkood baa waxoogaa sensitivity ka yara qaba laakiin in la dhacay oo meelihii ay wax ku caabudayeen la gubay oo dhib loo geystay oo dad badan ay dhinteen waa wax xaqiiqa oo aan la dabooli karaynin isla markaana aan la dafiri karaynin yani waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in dadkaasi kalsoonidooda dib loo soo kasbado loo sheego meeshan inay weli wadankii ka mid tahay annaan weli Ethiopia ka goyn dee waagaan ka goona Allah ina gaarsiiyo laakiin imika wadanku uu sidan yahay ammaankoogii dib loo magaranaysaa loo ashuur gareeyo in ay nabad ku joogi karayaan in ay sida caadiga ah u shaqaysan karayaan taasina waxoogaa xilli bay yara qaadan doontaa saan filayo taas waa mid takale saddexaad ee soo yara baxbaxaysa imikuna waxa weeyaan sidaan hore usoo sheegay yacni dimuqraadiyaddii lafteedii waad moodaa inay yacni xorriyaddii aan hele baad moodaa inaan ku yara hafanayno oo dadka qaarkood ay daad ku noqonayso wax inaga weyn oo kale inaan aad u filaynin oo inala tegaya taas baa keenaysa mararka qaarkood dadku xitaa wuxuu xaq u leeyahay waxaan xaq u lahayn intuu kala garan waayo in wax kastaba yidhahdo xaq baan u lahay uu iska sheegto yani maxay ku timiday ma khaladkiisa mayna wuxuu u baahan yahay in la fahansiiyo horta wuxuu isagu xaq u leeyahay iyo waxaan xaq u lahayn haddaad jigjiga ku dhalatay macnaheedu maaha jigjiga keliya baale maaha jigjiga waa caasimadii deegaanka weeyaan waa caasimadii deegaanka oo dhan 9 kaleel bay caasimad u tahay dadkoo dhan way kusoo hirtaan dadka gobolka Soomaalida ku nool oo dhan nin walba inuu beyd iyo barak u yeesho jecel yahay sidaasayna caasimad ku tahay magaalo ku tahay haddii intii yarayda magaranaysaa deegaankan asalka markii hore deganaan jirtay dina caasimadda ka hor intii deganaan jirtay una hadday kusoo hadho inteen lagbay jigii soo noqonaysaa inteen lagbay dadkoo dhan qaadi yacni inteen lagbay indhaha dadka soo jiidan karaysaa xitaa caasimad yacni waa meel la wada leeyahay aanusan aaminsanahay yani deegaanka ciddii doona inagu intaynu maanta jigjiga hadalka gelin lahayn waxaa jira magaalooyin Soomaaliyeed oo hadal ku jira kuwa inaynu ka hadlay ku qurux badnayd anta halkaan ka taaganahay waad sii karaysaan haddaan khaldanahay dir labo kala kamida waxa kamida maxay ahaydeen babilio kala kamida meelo fara badan baa kamida yani meelahaas oo dhan kuwaasaa u baahan inaynu ka hadalno oo aynu dood ka keeno aynu dood gelino laakiin caasimadeeni way jigjiga inaku gudaheennaan aad hoos isugu soo noqon hadalkii oo tuuban inagu haddaynu hoos isugu soo noqono wixii naga maqnaa oo dhan baynu indhaha kala leeyahay deedna we are going back to square one again waxaynu u qaadan doontaa tana cycle ka kale inaynu xilli ka soo baxnay nagu qaadan doontaa which is not good taasina waxay noo fiican maaha xirsiga uu soo dhawaada iga yar nasi bismillaahi raxmaani raxiim codku inkastuu gogo'ayo ma aqaankayga sidaad u maqlaysaan si fiican baan kuu maqlaynaa anagu ciid mubaarak waa 2 ciidood oo isgalay maanta oo jigjigo ay si xor ay ku ciidayso oo cabsi ayna qabin waa ilaahay baa lagu mahadiyaa horta maalinba meel bay maraysaa horta ciidaasi waa ciid weyn oo macnaha exceptional ah oo ka duwan ciidii hore ay dadku ciidi jireen marka dadka deegaanka Soomaalida ee Islaamka adduunka waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan rabaa in 3 ilaa 4 qodob inaan ka hadlo hadii alla idmo qodobka koowaad ee ah reshuffle-ka ama isbedelka oo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee deegaanku uu sameeyay toddobaadkii la soo dhaafay iyo siday dadku u arkaan iyo waxa ay ku baaqeen yaan rabaa inaan horta ka hadlo qodob ahaan iyo Oromo iyo Ahmara iyo Tigray waxay rabaan way caddahay waanu naqaanaa Tigray ethnic federalism buu rabaa
ay iyagu xagga dambe ka taagan yihiin dantooda ay ka fushidaan qowmiyadda axmaaradu waxay rabtaa hal dal oo Ethiopia la yiraahdo hal luqad oo axmaari ah iyo hal dawlad in la sameeyo meesha ay Oromo labadaaba maanta ay rabto Ethiopia inay andinadkii soo celiso ethnic federalism ay dantooda ay u arkaan ay ka fushidaan yay rabaan Oromo maanta oo shalay waxay taagnaayeen waanu ka go'aynaa waana la caburiyaa therefore Soomaalida maxaa la gudboon maxay naga maqan maxaan rabnaa inagu qolo waliba ra'yi wax la yiraahdo fikir bay ku halgamaysaa war inagu maxaan ku halgamaynaa iyadana inaan isweydiinna maanta oo isdul joogsano marka labada qodob baan hadda aanu horta ka hadli doonaa marka dambana waxyaabaha kale ee muhiimka aynu geli doonaa qodobka koowaad ee reshuffle-kii la sameeyey dadku ma ku qanceen ma ku qanacsannahay inagu Soomaali ahaan anigu waxaan leeyahay maya intaa in ka badan bay dadku filayeen waxa weeye meesha regime-kii jiray ama dowladdii deegaankay jirtay raggii macnaha la waday Cabdi Maxamed Cumar weli waxaad moodaa inay shaashada ka soo muuqdaan cidda qof dhihi karta waa dambiile iyo dambiile ma inkastoo ay maxkamad tahay laakiin waxaan ognahay in ay dambiye fara badan ay gacmaha kula jireen dhibaatooyin fara badan ay geysteen tii ugu dambeysay ahayd jigjiga wixii ka dhacay raggii intay live soo fadhiistaan yidhi isdifaaca Oromo ay nagu soo duushay dagaal gala ciidamada federaalka la dagaalama dhagax tuura ka saara magaalada raggii lahaa live-kooda videogooda oo la hayo inay maantana iyagoo mas'uuliyiin joogo ku noqdaan horta waa nasiib darro marka arrintaas waa qalad baan leeyahay dib ha loogu noqdo xisbiga si dhab ah la isku gamgamay nin walba dambiga iyo dhibaatada uu geystay haddii corruption tahay haddii maamul xumo tahay haddii ay tahay tacadiyadii gobol ka dhacay qaybta ay ku lahaayeen nin walba inuu qaybtiisa qaato oo nin walba gacanta laga saara wixii uu hoostagaya isbeddelkan ay ku dhawaaqeen iyo odayaasha la invite garaynahaya ee imanaya iyo aqoon-yahanka odayaasha number 1 waa inayna noqon odayaashii koofiyad baclayaasha ahaa inayna noqon ay noqdaan odayaal ka nadiifa waxyaabihii gobolkaasi ka soo dhacay aqoon-yahan ka nadiifa wixii meeshaasi ka dhacay tacadi ama dhibaata iyaguna waa inay noqdaan aqoon-yahanka imanaya haddii ay jiraan dad kale oo intellectualist ama respected ah deegaanka kule la invite garanayo dad macnaha waxaasoo dhan ka madax bannaan inay noqdaan baan ku talin lahaa formulaga ergada lagu qaybsanayo muhiim ma aha in la yidhaahdo degmooyinkii beenta ama feega ahaa ha lagu qaybsado iyo iyaan lagu qaybsan waxa weeye deegaanka degmooyinkii originalka ahaa ee la yaqaanay 250 degmo ahaa 9 gobol ahaa in lagu qaybiyo bal inta laga heshiinayo wixii dambe ee lagu soo daray in ergada lagu qaybiyo say u kala badan yihiin gobolladana ergooyinka loo kala siiyo gobolladu way kala badan yihiin dadku wuu kala badan yahay magaalooyin caasimadoo kale inay ka yar duwanaato wax dhib ana uma arko gobolladuna say u kala badan yihiin ay u kala qaataan yaan ku talin lahaa dadka la soo xulay inay dad caynkaas noqdaan ka talin kara masiirka ummadda taasaan ka leeyahay markaa ka bacdina dadka Soomaaliyeed inay dantooda u midoobaan ay dad walaalo ah noqdaan ay wixii hore ee soo maray iska iloobaan ninkii dambi laga galay iyo kii dambi galayba maxkamada fair ah baa iman doona process sharci ayaa la marin doonaa qof kasta oo dambi galay iyo kii dambi laga galayna waa inuu sharciga ku aarsadaa inayna noqonin maantaan haystaa awood oo qorintaan qaata ama aan midi qaata ama aan dhibaato aan gurigii ama qofkii dhibaatada ii geystay aan ku duulo waxay noqonaysaa casru jaahiliya iyo law systemkii casru jaahiliya marka waxaan ku talin lahaa in nin waliba uu sugo xilligeeda iyo waqtigeeda iyo sharciga uu la sugo ninkii dhib qaba ninkii dhib geystayna waxa weeye haddii aad dhib geysatay process sharciga lagu marinaya marka in revenge la sameeyo
ayna dadku ayna macquul ahayn ama sharciga waafaqsanayn waan ka digayaa iyadana qodobkayga kale ee ah oromo iyo axmaara iyo tigrey waxay rabaan way caddahay horena waan ii sheegay oromo waxay rabaan hadday shalay qabeen inay dalkan ka go'aan ay ka madax bannaanaadaan gobol oromiya la yidhaahdo oo xor ka ah dalka intiisa kale ay rabeen maanta waxay rabaan dalka inay xukumaan heshiis bay ku yihiin mucaarad iyo maxaafidba ethoobiyan inay dib isugu soo celiyaan oo magacii ethoobiyaannimo axmaaradana ay raalli geliyaan iyo diyaar u yihiin oromo saasay iyadu rabtaa axmaaro waxay rabtaa hal dal hal luqad iyo hal dowlad in la sameeyo oo wax la yidhahdo qowmiyad ethnic federalism way kasoo horjeedaan iyaguna dee saasay visionkooga iyo missionkoogu yahay tigreegu ethnic federalism bay keeneen oo fake ah oo been ah laakiinse xaqiiqada dhabta ah ay tahay iyagu ultimately inuu wax ka go'aan tii maanta ma jirto wax isbeddel baa ka dhacay dalka soomaalidu taariikhda markaad dib u eegto waxaa jiray laba kooxood umaynu ahayn koox dowladihii isa soo bedelayay la shaqaysanaysay oo hoos ordaysay ama la shaqaynaysa oo maamul u ahayd kolba kooxdii timaada la shaqaynaysay iyo koox qori qaadatay oo qori degta saaratay oo tiri annagu xoog baanu bidnay inaan dalkan kaga go'no taariikhdii axmed gurey mataqaanaa 17 tii ka dambaysay Soomaali galbeed onlef waan soo marnay marxaladahaas oo dhan waxay ahaayeen marxalad xoog wax lagu raadinayay in dalkan aan kaga go'no maanta waxaanu aragnay wixii isu soo bedelay maanta onlefka ugu dambaysay Addis Ababa joogaan wafdigooda horaantoodii qorigii inuu waxba tarayn oonan waxba lagu qaadayn oo dalku isbedel ka dhacay way realize gareeyeen one way and another way yimaadeen haddaba dadka Soomaalida kuwii dowladaha la shaqayn jiray ee ama Tigray la soo shaqeeyay ama dowladda Dargiga la soo shaqeeyay ama dowladda Xilli Silaasan la soo shaqeeyay iyo shacabkii iyo onlef iyo cid kasta oo gobonimo doon ahayd maanta danteenu maxay tahay Ethiopia maxaan ka rabnaa waa ina ra'yi jira wax lagu heshiis yahay oo rabno waa inuu jira oo nin waliba uu ilaaliyo iyadoo indifference iyo wadooyinka loo maray ay kala duwan yihiin aniga marka fikirkayga waxa weeye dalkan haddii dimuqraadiyad ka dhacdo oo siyaasadda la furfuro oo nin iyo cod ay tagto in xisbiya loo kala baxo oo nin waliba group waliba oo xisbi samaysto xisbigaasna uu ra'yi ama dalkan waan kasii mid ahaanaya haddaan cod ku helo si dimuqraadiyadan Ethiopia ula noolaanaya waxaan rabaa regional autonomy ka macnaha aan faragelin lagu sameyn baan rabaa qolo leh anigu may waan halgamaya cod baan ku helayaa majority seats ka baarlamaanka regionka markaan helana waxa weeye processkii waxaan maraya article 39 dadkayga inaan xornimo u raadiyaan rabaa qolo saddexaad hadday jirto oo leh may bal horta aan la sii joogno dalkan aan regional autonomy noqono dadkayaga aan wacyi gelino aqoon dadkayaga ku filan ha helaan dhaqaale ku filan ha helaan after hadday dadku u gartaan inay dalkan kasii mid ahaadaanna iyagaa choice iskale haddii ay rabaan inay dalkan ka go'aan ay ka madax bannaanaadnaada in processkii sharciga ahayd iyo qalin iyo buug aan ku raadino group saddexaad hadduu jiro sidaa inta loo kala baxo dadkuna ay qabiilka iyo waxyaabaha maalayacniga ku meeraysanayn inta la iska daayo kooxaha iyo xisbiyada loo kala baxo cod lagu kala baxo si dimuqraadiyada ciddii soo guulaysato ay fikirkeeda ay ku hogaamiso qolada kalena ay wixii qaladaad qoladaasi ay samayso farta ku fiiqdo waa normally waa processkii dimuqraadiyada aynu naqaan ka haddaan la marin oo aan fikirka aynan ku wada shaqayn maalinba dee waxyaabaha raqiiska ee la leeyahay reer hebel baa kursiga laga qaaday reer hebel baa inay qabsadaan ay rabaan gobol hebel baa kacdoonkii aabba u ahaa waa inaan anagu qabsanaa reer hebel baa kacdoonkan ugu horreeyey ex baa kacdoonkii ugu horreeyey waa inaan anagu kursiga sanadkan qabsanaa nalagama xigo reer hebel oo dib u jooga waxyaabaha caynkaas aan uma raba inaan magaca dhawo laakiinse way jiraan waa wax la wada ogyahay
qolo waxay ku oranaysaa ogaadeen sanadkan dib hanoo lagu dhigo jidwaaq baa sanadkan iskale may city baan nahay kacdoonkii ugu horreeyay barbaarta city buu ka bilowday kacdoonka gudaha markii la bilaaway reer city baa maanta sanadkan iskale may haddaan anagu ogaadeennahay annagaa majority ah deegaankii annagu unbaa maamuli karayna waxyaabahaasoo dhan aan waxaan u arkaa irrelevant ururo aan u kala baxno fikir mabda aan ku kala gedisnaano ha lagu tartamo fikirka macnaha ciddii iyo xisbigii majority-ga soo baxo aynu uga dambayna talada haddii qaldan yihiin aan farta ku fiiqno saasaan dhihi lahaa anigu waan ka baxay haddii uu maxamed shumar wax ku daraya isagana بارك الله فيك aad baad mahadsan tahay xirsi waa saasoo waxaanu doonaynaa inaynu kasoo guurno maad garanaysaa wixii ku bays garaysnaa cirqiga iyo nasabka iyo qolada iyo intaynu kasoo guurno aynu fikir usoo guurno yacni fikirkaasaan taageersanahay haddii xitaa aabbaha iyo magaranaysaa kuwa kugu dhadhow oo kale ay fikirkan kasoo horjeedaan markaad adigu gaadho heerka magaranaysaa anigu fikirkaasaan raacay ee kan dadka iigu dhadhow maan raacin kolkaasaa la odhan karaa bisayl siyaasadeed baynu soo gaadhaynaa ama aynu soo dhawaanaynaa yani markii hore waxay iska ahayd gobol bay ku bees garaysnayd ama waxay ku bees garaysnayd maad garanaysaa qabiil ama magac qolo ay leedahay waxaasoo dhan taa intaynu ka guurnaa la rabaa inaynu usoo guurno maad garanaysaa fikir yani anigu fikirkaasaan ayidayaa xaggaasaan u badanahay inaad fikirka noocaasoo kale la iman kartid oo naftaada markaad ku qancisidna dadka kalena aad ku qancin kartid inay fikirka qaataan ee aanay qaadanin maad garanaysaa waxa yani indhala-aantii aynu ku taageeri jirnay qabyaaladda meeshaa ka baxdo almuhim taasaa muhiima yani reerkaygu hadduu saxan yahay iyo hadduu khaldan yahayba iyakaan anigu ahaya iyakuna anigay yihiin taas baynu diidaynaa inaynu kusii soconno oo loo baahan yahay inaynu bedelno fikirkaa dadku ka qabaana inaynu bedelno oo tobannaankii sanadooda lasoo dhaafay waxay dadku dhibka u keenay taasay ahayd yani indhala-aan baa qolo layska taageerayay indhala-aan baa yani laga yaabaa urur u badan qolo inaad saa dhana ma jecliye inaad iska taageertid maadaama ay qoladaasi u badan tahay adigoon xitaa fikirkoogii iyo waxay u socdaan iyo magaranaysaa geedi socodkoogu halkuu yahay iyo visionkoogu halkuu ku dhammaanayo iyo waxay hiigsanayaan himiladoodu maxay tahay adigoon eeginba ayaad leedahay maadaama hebel iyo hebeloonu isku reernaay ku jiraan aniguna xaggaasaan ahay reer galaba guriya guurnay waxay la odhan jiray oo kale haddaan in yar ku yaro noqdo xirsi baa kolley si fiican u dhigay nidaamkii hore yani waxyaalo badan oo laga dhaxlay oo waxay tahay meesha inay ka baxaan ay tahay baa jira yani dadka ashkhaasta aan waxaa laga yaabaa xirsi inaan in yar halkaa kaga yar duwanayo ashkhaasta iyaynaan xooga saarin laakiin nidaamka iyo systemka iyo waxa uu ka tegay aynu xooga saarno haddii dad ay u shaqayn jireen nidaamkaasi oo ay tuul ahaayeen lagu shaqaysto oo aanay iyaku go-aan lahayn oo kale ma jirto sabab aynu u saarno tan oo kale beritoolana oo dadku waa shaqaale waa masaakiin shaqu qofku iska helay nolol buu u baahan yahay yani technocratka dadka la idhaha oo kale yani dadka skill dadka farsamadooda ku shaqaysto oo kale kuwaasoo kale iyoynaan isku ladhin maad garanaysaa nidaamkii hore wuxuu ahaa oo dhammaantood baa inaan dhinac isku wada raacin inaan odhan magaranaysa waxaa la cidda xafiiska ka shaqaysay oo dhanba waa wada aafimiin hana dhaafaan inaan taa odhanin laakiin nidaam iyo system meesha ka dhisnaa oo dulmir ku dhisnaabay tahay inaynu meesha ka zuulino iyo inaan ashkhaasta xooga saarin aynu xooga saarno nidaamkii iyo systemkii jawrka ku dhisnaa ee dulmiga ku dhisnaa ee meesha ka jira inaynu bedelo taasaa ka muhiimsan yani nidaamkii xitaa markaad bedeshid kii dulmigaasi iyo jawrkaa la soo qabsaday isagaama nidaam cusub la qabsan karinba lamaba sii socon karaba adigoon tag odhan bu iska tegi waayo wuxuu usoo bartay meeshan ma jirayaan haddii uu usoo bartay in reehebilnimo lagu soo koolkooliyo oo magaranaysaa xoolaha dadka bilaa xisaab uu iska qaato oo dadka kuu doono uu dulmiyo kuu doono au xidho kuu doono au qadfo oo magaranaysaa sharaftiisa iyo cirdigiisa uu ku dhaco mar kasta wax ka sheego tantii maaha way ka duwan tahay wax kasta oo uu sameeyana waa lagula xisaabtamaya yani inaku dulmi baynu diidnay waan ka dhiidhinay isla markaa inaynu dadka dulminana waa laga fiican yahay ashkhaastan iyaku nidaamkii hore ka ahaa high profileka oo kale oo dadka go-aamadu ay ka go-aan ahayd haddii ay soo raacaan nidaamka cusub ee imanaya anigu waxaan qabaa borsaskii loo maray in lagu nadiifiyaa inaanu saxayn wax ka dhimayn kaas baa u baahan in dib loogu yaro noqdo la saxo yani haddii kaa la sixi waayo oo dadkiioo sidii haddana ay kugu soo noqdaan waa kuwa decision maker dadka go-aamada gaadha yani dad ama qof noloshii go-aan ka qaadanaya ama lacago badan oo la sii dayna go-aan ka qaadanaya
ama yacni in uu wax sameeyo process soo socday go-aankiisa nin kale ee hoosta ka saxiixi jiray oo kale hadduu maanta kugu soo noqdo nidaamkan cusubna isagoo haddana hoosta wax ka saxiixayo oo go-aan oo awoodiyo kale leh processkii la maray in dib loogu noqdo aynu u baahannahay oo dib wax loo saxo ay taasina u baahan tahay ka gudubtaa calaa kulli xaal waa inaynu hal shay fahnaa oo ah waxaynu la dagaalamaynay in uu nidaam uu samaystay dad aan dadka u naxayn gumaysi ugu yeedh haddaad doontid kuwayna qabsaday ugu yeedh haddaad doontid waxaa doontid ugu yeedh yaa samaystay oo inagu fuuliyey waa laynagu isticmaarsaday 10 sannadood bay dadkan dhibkaa kusoo jireen waxaasna nidaamkaasa samaystay nidaamkii in aynu bedelaynu u baahannahay halkaynu ka bedelaynaa waa sax hoosta inaynu ka bilowno laakiin haddana meel ka sarraysaa jirta oo xaggii waxaan inagaga yimaadeen ah markii horena waa sheegay haddana waa kusoo celinaya yani hawsheennu kumaana dhammaanin maalintii cabdigu meesha ka tegey hawshu intaa way ka ballaaran tahay way ka guda ballaaran tahay way ka weyn tahay way ka xajmi badan tahay waxaynu u baahannahay inaynaan fadhiisanin inaynaan inaku hoos isugu soo noqonin oo aynaan qabaleeyadeenna iyo jigjiga iyo ma garanaysaa maxay ahayd qabir bayax iyo shiniile iyo waxyaalo noocaas oo kale aynaan aad ugu sii mashquulin waxaynu u baahannahay inaynu meel ka sarraysa eegno waxaynu u baahannahay inaynu halkii wax naga maqnaayeen tegno oo wixii naga maqnaa maxay ahayd halkii waxaan laga soo aloosay laga soo agaasimay marka horeba dowladda dambe hawl badan baa u taalla waxaan filayaa waan ku rajo weynahay in ay kasoo bixi doonaan hawshaasi oo ah xaqii dadkan ka maqnaa inay halkii uu ku maqnaa u raadiyaan inuu halkii uu ku maqnaa u raadiyaan mid kale oo beryaan aada soo baxbaxaysayna waxay ahayd midnimada aynu ka shaqayno waa sax midnimo waynu u baahannahay waynu ku caanamaalaynaa maanta aynu u baahannahay berri baynu u baahannahay weligeed baynu u baahannahay haddaynaan mid ahayna wax alla waxaan soo heli karaynaa ma jirto oo ma garanaysaa wixii gacanta inoogu jiray baa laga yaabaa xataa inuu ka baxo haddii kala tafaararuq u yimaado waxaa laga yaabaa daalin baynu ka sheekeynayna iyo nidaam dadka uu ku dulmiyey baynu ka sheekeynayna ku ka sii daran inuu yimaado haddii aynu inaku iska qabsano inu hoos isugu soo noqono laakiin midnimadaasi waa inay noqoto tu un aan afka ahayn oo iska soconin ee midnimo inta fikir la iskula yimaado waxa loo midoobayaa uu noqdo in nidaamka hore gebigiisa meesha laga suuliyo in waxa cusuba aynu dhisanaynaana uu noqdo wax cadaalad ku dhisan si aynu kuwii hore uga duwanaano haddiise ay noqoto uun aan iska midowno dee waxa soo gelaya markaa dee cabdi iyo kuwiisii iyo nidaamkiisii iyo wixii o dhan aan iska wada midowna un oon israacna un xaggaynu u socnaa markaa dee meel lama tegayna meeshaan dhaqaaqas dhacdaba dee adigoo kuwii hore ka tirsan maa jallaafa ii dhigay de qodax baad ii dhigaysaa masaabiir baad iigu taagaysaa waddada midiyaad siyataa makiinad baad siyataa kuma aamini karaya dee haddaan la is aaminina meesha wax midnimo laydhaa meesha ma jirayo waxaynu aaminaynaa dad kuwii hore ka socdaa oo decision maker ka ahaa markay inoo yimaadaan han midowna inay yidhahdaan horta adiga cadaaladda ha lagu soo mariyo wixii aad gashay ha lagaa soo gudo dadkii aad dulmiday la soo heshii xaqa dadka iska soo nadiifi adigoo nadiif oo kelina noo kaalay aan ku diidna markaas kuma diidayna markaa laakiin maanta adigoo waxaan u arkayaa ninka intuu soo horboodo isagoo ka tirsanaa kuwii hore amaba se jaal la ahaa oo gacansaar la lahaa intuu soo horboodo doonaya inuu ugu qanciyo aan midowna oo kale nin ceebtiisa ku qarsanayaan u arkaya yani danka ma laha wuxuu danka leeyahay ma jirto ka aan ka yeella igu lihina waxaan u arkayaa nin leehaan waxay u tarin oo ninkan danku doona baa ka socda halkarintaasi ama qaraaba ahaw ama isku magac ahaada ama ma garanaysaa meel kasoo wada jeeda ama si un waxay idinka dhexeeyaan laakiin miqyaaska aynu wax ku qiyaasaynaa ha inoo ahaado cadaalad yani ninkani xadgudub miyuu la yimiday haddii xadgudub la yimidayse ma laga soo jaray ma ka toobad keenay dadkii xaqoogii ma u celiyey ninka intuu dhul miskiin tusaale ayna siinayaa dadka masaakiinta dhulka waa laga qaadan jiray jigjigo kaloo dhulku qaali ahaa ninka jaga miskiin ka qaatay 500 kilomitir ama 250 kilomitirba oo jagadii haysta oo xujad iyo wax kasta intuu u samaystay asalkeegiina garanaya inuu hebel ka soo qaatay oo maanta intuu ii yimaado igu dhahdo aan midoono aan sax idhaahdo ee haddana nidaamkii dambe dawladdii ka qayb noqda beritoole weli awoodii buu haystaa oo ninkaa miskiinka xaqiisa ku dulmiyey buu haystaa taas baan yani midnimo ma diidanin laakiin waxaan doonaynaa midnimo nadiifaan rabnaa oo magaranaysaa dad kelina ay isku yimaadaan haddii kalese haddaad magaranaysaa garbage oo dhan intuu kuusoo galaadhi doona maxaad filaysaa de waa garbage ma fiicna marka ani xaggayga intaasaan kusoo koobi lahaa xirsi haddaad wax ku daraysid laba arrimood oo ta midnimada ah iyo waan rabaa inaan wax ka yar idhaaho iyo ta ah systemka dawliga
in la midoobaa oo danta guud loo midoobaa ceeb ma laha oo wax la wada ilaashado ay jirto laakiinse aragti mar waliba waa lagu kala qaybsanaanayaa labada qof ee walaalaha ah baanan isku fikir noqon karayn oo hal xisbi inuu wada taageeran laga yaabaa naturally way adduunka oo dhanna way ka jirtaa marka mar waliba aragtida waa lagu kala qaybsanaan karaa laakiinse danta guud waan ka midaysan inaan ka midowno oo waxaanu ilaashano oo soomaalinimada iyo dalka iyo dowladnimada inaynu wada ilaashano oo sidii Soomaaliya oo kale ayna nagu dhicin innaga dadka Soomaalida qabiilka intay u kala baxeen dalkoogii burburay inaynaan noqon oo danta guud loo midoobo waan soo dhaweynayaa in aragtida lagu kala qaybsamo xisbiye laga taageerana waa natural way laakiin qabiil inaan kala taageerno ma waa inaan aragti ku kala qaybsanaa iyo xisbiyo taasaan ka leeyahay ta macnaha naturally in revenge lagu sameeyo maaha oo si generalization systemkii cabdiyo dhan dadkii la shaqeynaya hal xaaqo fikir sax maaha aniguba ma qabo laakiinse waxa weeye ciddii dambi leh ee decision maker ahayd ama qof lagu dhibaateeyey go'aan uu la gaadhay cabdi ama isaguba gacantiisa dhib ku geystay sharciga wax noo kala goynaya ka hal qodob waan u sheegayaa dadka systemka dawliga markuu meesha ka baxo iyo meeshii dhibaatada laga soo safrinayay oo ahayd Addis Ababa iyo TPLF oo maanta awoodii ayna iyaga gacantooda ku jirin anigu ma filayo in continuation of wixii cabdi iyo systemkii cabdi oo kale inuu dhici karo marna ma dhacayo haddii aynan nimankii awoodii ku soo noqon oo niman caynkan oo kale ah iyo type of cabdi oo kale loo baahdo mooye laakiinse fi waqti xaadir waxaan aragnaa inuu isbedel guud dalkii ka dhacay mushaakilkii iyo dhibaatadii annaga naloo soo safrinayay iyo xiniyihii cabdi uuna lahayn loo tolay ya maanta meesha uu ka baxay marka anigu wori badan kama qabo cid kasta oo meesha timaadaa ma noqon doonto systemkii meesha ka baxay oo kale oo waxa weeye system aanan kaba ogolaanin baa Addis Ababa maanta fadhiyo waxaynu accountable mar walibana u nahay dowladda federaalka ayaynu qayb ka nahay oo dowladda federaalka systemka ay ku shaqeyso baanu ku shaqeynayna laakiinse cabdi siduu ku shaqeynayay iyo sidii oo looga shaqeynayay gobolka oo dhan waa wax Addis Ababa ka taagan oo dalka oo dhan lagu xukumayay isagu intiisa ku badarsado markii 10 loo soo dhiibo 20 buu ku darsanayay waan ogna laakiinse maxaa 20 ka keenay 10 kan xun baa keenaya 20 ka ma dhici doontaan leeyahay wax warwara kama qabo war shacabka danta guud ha u midoobaan aragtidana ha lagu kala qaybsamo marka intaa iyo ciidda baan u soo galnay aniga gudoomiyaha hadduuna gudoomiyaha wax kale ku darayn insha Allah marar kalena waan isku soo noqonaynaa waa iska wacyigelin fikir baa isweydaarsan waxaan idinku dhaanaa ma jirto afkaartayadu baan meesha soo dhignaa haddayna aydan qancin dhib ma laha oo waxa weeye qof walba aragtidiisu qabaa واصح markaan soo galnaa ayaan ka hadli doonaa aad baad mahadsan tahay xirsi aniga lafteed wax badan ma sii hayo waqtiguna xoogaa ugu yar yahay moodaawada waa maalin ciido qoliya carruurtii waa meelaan ii taagan oo gaari wadaag taagan marka waan ka xumaa inaan cid kale soo qaban karin dhowr walaalaha kamid ah soo weydiistay inaan soo qabto laakiin am sorry inaan ima soo qaban karo waqti kale su'aalaha iyo jawaabaha ka dhigaynaa oo soo qaban insha Allah ta'ala waxaan filaynaa inaan waqti badan isku heli doono hadii la yiraahdo waan maalmaha qaar ka dhigi doono ma garanaysaa su'aalo jawaabo kale oo dadka su'aalaha qabaan isku dareereen qanacna ma aynu ka faa'iideysanayo ka laftooda insha Allah aad baan salaamaya salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته